maalin wanaagsan ku soo dhawaada channelka Qaraax Tube. fadlan subscribe dheh channelkeena si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. like saar muuqaalkan lana wadaag oo u share garay asxaabtaada. warbixintan waxa ay ka hadlaysaa abaalmarinta UEFA Men Player of the Year ama ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee Yurub. waxaa ku tartamaya Modric, Ronaldo iyo Mohamed Salah. caaba ayaana la bixin doonaa marka la sameeyo isku aadka heerka guruubyada ee tartanka Champions League. Luka Modric, Cristiano Ronaldo iyo Mohamed Salah ayaa ku dagaalami doonaan abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee qaaradda Yurub 2017 iyo 2018. guuleystaha ayaa lagu dhawaaqi doonaa si lamid ah waxaa la bixin doonaa abaalmarino kale, balse warbixinteena waxay si gaar ah ugu qotontaa saddexdan ciyaaryahan iyo waxqabadkooda waxa ay Yurub ka sameeyeen. waxaan ku hormari doonaa Luka Modric oo ah ciyaaryahan Real Madrid qadka dhexe uga ciyaara ahna kabtanka xulka qaranka dalka Croatia ayaa abaalmarintan ka soo muuqday. waxqabadkiisa sanadka la soo dhaafay marka la fiiriyo Real Madrid ayuu kula guuleystay tartanka Champions League. sidaas darteeda wuxuu ka mid ahaa ciyaartooydii FIFA World Cup kaalinta labaad ka gashay. sidoo kale waxaa la siiyay bilada FIFA Golden Ball kubadda dahabka ayuu qaatay oo ah ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee tartanka. Cristiano Ronaldo oo Real Madrid waxqabadkiisa lagu qiimeyn doono maadaama hadda uu joogo Juventus. UEFA Champions League ayuu ku guuleystay Cristiano Ronaldo, waana rikoor isaga u gaar ah ciyaaryahankan. wuxuu noqday gooldhaliyaha ugu sareeya ee tartanka Champions League, waliba markii lixaad ayuu qaatay Ronaldo. xulka Portugal ayuu la gaaray wareegga 16 ee tartankan, balse uma suuragelin. xidigan reer Portugal guulihiisa qaaska ah marka laga soo tago wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda ugu cadcad ee tartankan wax ka qaban kara. 13 jeer ayuu ka soo muuqday tartanka Champions League, 15 gool ayuu dhaliyay, 3 caawinaadna waa uu sameeyay Cristiano Ronaldo. saadarteeda xil ciyaareedkiisa ma xuma, bandhigiisa ma xuma, si lamid ah goolashiisa. waa ciyaaryahan rikooro dhan walba ka sameeyay Ronaldo kaga duwan xidigaha uu la tartamayo. Mohamed Salah waa Liverpool iyo Masar. inkastoo xulka Masar uusan wax fiican u sameyn koobka adduunka ee 2018 dhaawacyo soo gaareen dartii, haddana waa xidigii galay kaalinta labaad ee tartanka Champions League isagoo markii ugu horeysay ee Liverpool ka soo muuqday wacdar sameeyay. si gaar ah ayaan u fiirin doonaa Mohamed Salah waxqabadkiisa. Mohamed Salah ayaa kaalinta labaad ka galay tartanka Champions League, 13 jeer ayuu ka soo muuqday tartanka, 10 gool ayuu dhaliyay, 5 caawinaad ayuu sameeyay. horyaalka marka la fiiriyo 36 kulan ayuu ka soo muuqday, 32 goolna waa uu dhaliyay. Mohamed Salah ayaa awoodi waayay inuu dhameysto ciyaartii finaalka ee tartanka Champions League u dhaxeysay Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool. daqiiqadii 25aad ayaa la bedelay kadib dhaawac garabka oo soo gaaray xidigan. guud ahaan 44 gool ayuu Mohamed Salah dhaliyay, waana mid ka mid ah ciyaartooyda ugu saameynta badan kubadda cagta marka la fiiriyo xidigan. sanadkii la soo dhaafay tababare Jurgen Klopp ayaa aaminsan in xidigan uu u qalmay abaalmarintan marka la fiiriyo bandhiga uu sameeyay. caawa ayaa lagu dhawaaqi doonaa guuleystaha abaalmarinta UEFA Best Player, ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee qaaradda Yurub. fadlan qaybta hoose ee faallada ayaad kaga aragti dhiiban kartaa yaa u qalma abaalmarintan: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo iyo Luka Modric. subscribe saar channelkeena, like dheh muuqaalkan, una share garay oo la wadaag asxaabtaada. mahadsanid.